waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka mid noqday si rasmi ah maanta baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Soomaaliya isla markeedna aan waraysigan ku dhiibayo xarunta baarlamaanka oo ay tahay daqiiqadii ugu dambeysay kaarkii aqoonsiga aan ka qaadanayay dadka ku shaqada leh ama shaqaalaha baarlamaanka ee halkan aan ka shaqeynaya dhammaan waxaan u mahadcelinayaa in allaale intii ka qayb qaadatay dhismaha baarlamaanka cusub ee 11aad oo maanta gabagabo ah oo runtii aqoonsigiisii iyo sharciyadiisii la dhiibayo inaan baarlamaanka 11aad ka mid noqdo kaliya uguma faraxsanay inaan baarlamaanka soo galay laakiin waxaan ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaato dhibaatada maanta ka jirta dalka Soomaaliyeed xalinteeda iyo sidii wax looga qaban lahaa inaan ka qayb qaato aad baan ugu faraxsanahay in allaale inta ilaahay calaf ugu daray soo gudubtay doorashadii dhibaatada badneed ka soo gudubtayna waxaan leeyahay inay fikirkooda uu noqdo in dadka iyo dalka Soomaaliyeed la badbaadiyo aan baarlamaanka la iska dhex fadhiyin aan mishaar la soo dooran aad iyo aad u mahadsantiin